labadan walaalaha ah oo mataanaha ah ee Falastiiniyiinta ayaa dib ugu kulmay Gaza kulankoodii ugu horreeyay tan iyo markii ay iswaayeen muddo ka badan hal sano oo colaadi ay ka ogneyd Gaza. Maxamuud iyo Ibraahin ayaa kala lumay kadib markii uu dagaal ka dhex qarxay Xamaas iyo Israa'iil bishii Oktoobar ee sanadkii 2023. Ibraahin ayaa ku qasbanaaday inuu u qaxo koonfurta Gaza halka Maxamuud uu ku nagaaday waqooyiga marinka Gaza. colaadii dheereed kadib walaalahan mataanaha ayaa ku kulmay waddada Al-Rashiid ee Gaza halkaasoo boqolaal kun oo qof oo Falastiiniyiin ah ay ku lugeynayeen iyagoo ku soo laabanaya waqooyiga Gaza kadib markii Israa'iil iyo Xamaas ay gaareen heshiis la isku dhaafsanayo maxaabiista.